بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين بميل وبأدوية كجوتان أما قلق ويسو قارعيو كسو هذا الجنال كان بكي كوه رئيسي والجنال كان كسو قارعيو قال كان سبسكرايب صار وغليل كان أفضل سياد أنا ختي تعالى أظهر يا مقالة عن هل كان سوق دينو لايك شير عن كومنتي ونسو هذا مقالة سوق مقالكان waxaa uga hadlaynaa walaalaheen beledweyne waxaa ku dhacday dhibaato aad u weyn oo ah fatahaad weyn. Dhibaatadaasi waa dhibaato qadar Allah oo Ilaahay keenay oo bini'aadanka weyn. Akiis bini'aadanku waxaa laga rabaa in isku gurmadaan oo is caawiyaan ee wax walba isku qabtaan. Dunidan horta lama joogayo. Dunidan waa maalmo iska yar. Dunida ayaa kan leh raaxo. Dunidan ku raaxaystaa Ilaahay uu fududeeyaa. Uu rafaadaa gadaal ka raaxaystaa. Ninna noloshiisa dhan ayuu ku raaxaystaa. Marka saddexdaas isma laha. Marka walaalaheen beledweyne maanta way dhibaataysan yihiin. Garab ugu baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda ku nool Muqdisho gobollada kale iyo dhammaan daafaha caalamka. Waxaa laga rabaa walaalaheen inay u gurmadaan waayo musiibadan waa musiibo dabiici ah oo Rabbi keenay. Badanaana fatahaadahan way soo laabtaan. Dowladda Soomaaliyana waxaa laga rabaa inay fatahaadahan ka hortagto ay u keento xal ay iska dhaafto waxyaabaha kale oo ku mashquulayso ee diiradda saarto si ummaddu u badbaadin lahayd intii yar ah xilka joogto. Marka dadkeeni wax badan ayaa soo gaaray fatahaado badan, dhibaatooyin, ilmo yar oo guri fuulo, dhibaato kale, dhibaatooyin badan, biyo la'aan, dadka banaanka u soo baxeen, meel ay harsadaan ma haystaan, waxay rabaan joodari, waxay rabaan taandhooyin, waxay rabaan in meel ay ku harsadaan loo dhiso. Marka dadka dhibaato badan haysto. Maanta waxaa laga yaabaa inaa wax awoodid $10 ha ahaato. Maanta waxaa laga yaabaa inaa wax awoodid $10 ha ahaato, $20 ha ahaato. Wixii karaankaaga ku taakulay walaalaheen beledweyne. Adna waxaad ka helaysaa ajar. Ilaahay wuxuu kuu siinayaa mamada. Sidoo kale dadka ganacsatada ah, shirkadooyinka, dadka Ilaahay lacagta siiyey. Ogaada inay tahay fursad oo Ilaahay idin siiyey oo ah sadaqo. Hantidaada way kuu sii barakoobaysaa. Badbaadi walaalahaaga beledweyne. Hantidaada ma naaqusi doonto haddaa caawisid walaalahaaga beledweyne. Waayo Ilaahay wuxuu sheegay sadaqadu inay maalka barakeyso. Marka ka faa'iideyso walaalahaaga oo ka faa'iideyso intaa fursad haysato. Waxaa laga yaabaa fursad kale inay ku soo marin, aad xanuunsato, aad geeriyooto. Haddii aad caafimaad haysatid, Ilaahay wuxuu hanti ku siiyey. Ka faa'iideyso. Waxaad ugu faa'iideysaa inaa walaalahaaga caawisid. Walaalahaaga haddaa caawisid, beri ka maalin adna Ilaahay ku caawinayo. Marka dhammaantiin muuqaalkan soo gaarayo waxaan idinku dardaarmayaa inaa walaalihiina caawisiin. Si walba aad u caawin kartiin walaalihiin u caawiya. Wax walba awoodiin ku darsada walaalihiin. Maanta idinka ay idin baahan yihiin. Qof kale u maqan male. Dowlad kale ha u qaylinina. Aniga ay is caawi karnaa Soomaali ahaanteena. Xaasilnimo ayaa anugu jirto ma ahane.
aniga ayaa is caawi karno oo ummadeena wax gaarsii karo. Marka dhammaantiin inta i daawanaysa iyo inta aan daawanaynin u gurmano walaalaheen Beledweyne si u heli lahaayeen xasilooni meel ay degaan. Insha Allah Ilaahay waxaan ugu baryaynaa walaalaheen Beledweyne inuu dhibaatada ka qaado oo ay noqdaan dad meel degan oo xasilan oo ku noolaa jireen Ilaahay u soo celiyo. Ilaahay waxaan ka tuugay waa muslimiin dhibaato ku timid, nin walbo muslima dhibaato ku timidna waxaa laga rabaa inuu sabro. Adduunkana imtixaan, ninna wuu iska raaxaystaa, midna fatahaado ayaa gala, nin waa xanuunsan yahay, nin waa caafimaad qabaa, nin hantiyo haystaa, nin hanti ma haysto. Marka dhammaantiin waxay idinkula dardaarmayaan inaan caawino walaalaheen Beledweyne aan u istaagno. Maan muuqaalkan intuu soo gaaro ka faa'iidayso. $1 haddaa haysatid, $1 hataa ayaa ugu yar wax la sadaqaysto, ama ku shilina ugu yar wax la sadaqaysto. Waxay ku tahay sadaqo, sadaqadu yaraan ma gasho. waxaa laga yaabaa 2,000 ama 3,000 hadday aruurto inay wax u tarto, koo joodari, 2 joodari inay kusoo gataan. waxaa kaloo ka u mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliya oo iyadana sheegtay inay halaas awoodo ka badan ay awoodin. Marka waxaa laga rabaa shacabka dowladda qasnadeeda halaas ay awoodaa ayaa la dhahay 5 boqol. dowladdu waxay sheegtay tabarteeda oo dowladda hadda soo korayso. Marka anaga waxaa laga rabaa dowladda iyo anaga inaan iskaashano walaalaheen u gurmano. Dowladdii anaga haddaa iskaashano oo walaalaheen u gurmano, waxaa waaye meesha waxaa ka soo baxaya insha Allah biyahaas horta Ilaahay la bixi karo ma ahan, ibnu aadam isku day kara ma lahan. laakiinse waa dadaalayna. biyahaas waa webi dhidhinku baxayo, laakiinse waxaa ka awood weyn Allah. Allahna waxaan ka baryaynaa biyahaas inuu dadka muslimiinta dhibaataysan ka bixiyo. Annagana waxaa nagala rabaa inaan caawino walaalaheen, aan u gargaarno intaan awoodno. nin walba wuxuu awoodo. hadda gargaar badan way gaareen, laakiin weli waxbaa jiro. waxaa kaloo iga codsiya ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya inay xal u keento fatahaadahan. waxaa laga rabaa inay xal u keento fatahaadahan maalin walba soo laalaabana. xal waa loo keeni karaa haddii la qaado wadada koowaad. waxaa waaye in wax yar la xiro oo la isku dayo. sanadkan sanadku xiga haddii wax badan la isku dayo, biyaha sana u soo fatahi doonaa. sanad kale ugu yaraan ugu dambeyntii inay soo afjarmaan biidab inay Soomaaliya kusoo fatahaan. taasi waxay noo tahay guul. shacabkeenu ku noolaanaha barwaaqo nabad. maasha Allah horta Soomaaliya dhibaato ma qabto sida wadamo kale oo kale baraf iyo wax cimado ah. Soomaalida bis dhibta haysto waxaa waaye inay isku qanacsanaan, nabadna ay rabin. waxaa kaloo dhibta haysta ka mid ah fatahaadahaas oo geeska ka dhaco gobolada. marka dhammaantiin waa ku mahadsantihiin daawashada. fadlan hadday tahay markii kuu horeysay oo muuqaalkan kusoo gaaro, walaalaheen aan u gurmano. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan hadday tahay markii kuu horeysay aad janaalkan soo booqato oo muuqaalkan uu kusoo gaaro, subscribe noo saar. mahadsanid.